بسم الله الرحمن الرحيم نبضي داوديال meel kasta aad joogtaan ba ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo telefishinka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland idinka diyaariyay kulan xubnihii wasaaradda ah ee ku sugnaa dalka Belgiumka oo ay la yeesheen jaaliyadda reer Somaliland ee dalka Belgiumka wasaaradda ayaa xog waran siiyay dadyowgii goobtaas isugu yimi sidoo kale dadyowga ayaa su'aalo toos ah weydiinayay wasaaradda goobta joogay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasiirka wasaaradda qorsheynta qaranka ayaa si mug leh uga warramay horumarka ballaaran ee ay xukuumadda Somaliland ku tallaabsatay tan iyo muddadii uu xilka hayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo iyo Dr. Saad iyo Dr. Adna Aadan iyo Cabdulqaadir Xaashi cilmi markaasi adduunyadana waa la tusay Somaliland waa la tusay dadkii Somaliland maxaan ku dhahaayay aad iyo aad baa loo baahiyay in maaragtay qaranku aad bay u baahiyeen taladaasi iyo maalinka maanta muuqaalkaasi marka shaqo weyn ayay qabteen marka aad iyo aad mataqaana maaragtay waxaan u haneynayaa qaranka telefishinka qaranka iyo staffka ka shaqeeya iyo maalinka maanta mataqaana xitaa wasaaradda information maaragtay wasaaradda marka shaqooyinka caynkaasina way wanaagsan yihiinoo de waxaanu fidinaynaa maanta reality-ga iyo xaqiiqda jirta Somaliland in dadkii Somaliland ay doonayaan in dhaqso xorriyadoodii loogu soo celiyo inay adduunyada tusaan taqadumkaasi ka dhacay wadankii in ay la tuso dawladdan khusuusan iminka haysta talada ee Axmed Maxamed Siilaanyo oo hogaaminayo inay shaqo fiican oo maalinka maanta adag ay qabatay oo hayso oo doonayso inay sii wadana markaasi waxaanu doonaynaa inaan halkan ku adkeeyo in dadka Somaliland amba gudaha joogeen amba dibadda ha joogeen ay u midaysan yihiin istiqlaalka iyo recognition-ka Somaliland goobta ka hadlay dadka mid jaaliyadda reer Somaliland ee ku dhaqan dalkan Belgiumka Thank you for baadnu ku timaadeen waftiga aan soo qaabilnay sharaf bay noo tahay anagoo wadanka Belgium joogna laakiin se waqtigii waan ugu yaraaday waan soo dhaweynaynaa si wanaagsan bayna u dhacday shirkii halkan waxaan ka salaamayaa waftiga culus ee halkan nagu soo gaaray Somaliland waan leeyahay hambaliyo arrinka maanta aad qabateen waa arrin loo baahnaa aad loogu baahnaa maanta ixtiraafkii Somaliland raadinaysa dadka meesha iskugu yimid ee rag iyo dumar bale salaanta islaamka ayaan ku salaamayaa marka kale waftigeena ballaaran ee inuu yimid maxamed yuunus biixi hogaaminayo iyagana mahad baan u celinayaa waana salaamaya ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa sida ay u yimaadeen ay inoo soo baashireen iyo maanta arrimaha ay u yimaadeen ilaahay rabbiga subxaanahu wa tacaala inuu fudaydiyo inaguna ma kala maqnayna waynu isku maqannay waa dhulkeennii Somaliland waynu u maqannay inteena halkan joogtaa rag ahaado dumar ahaadeen walba halkan uu ku fikirayaa ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa ilaahay inoo fudaydiyo gaal iyo islaam bay ilaahay inoo saqiro israaf inaga maqan ma jiro ilaahay bayna xitraafay inaga is xitraafnay inaga raalli kala ah inaga is jecel ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay inuu guusha inoo taam yeelo dawlado badan oo la xitraafsan yahay ee Soomaaliland ka qiimiyo qadarin badan marka waxa weeye wax kala deesay oran maayo hadalka badin maayo ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahay rabbiga subxaanahu wa tacaala arrimaheena inuu inoo furfuro wassalaamu calaykum well done wasiir biixi yuunus oo ka jawaabaya su'aalihii ay dadku weydiiyeen qaarkood ayaa yiri Somaliland saad ula socoto waxyaabaha maanta dadka aan u nimid lagu tixgeliyo nabadda iyo xasiloonida iyo dimuqraadinimada markaynu ka hadlayno shuruudaha caalamku intiisa badan elections waa ka mid Somaliland 5 election bay qabatay oo dadku arkaan ahaayeen fair iyo free fair waa la socotaa diitan cod ayaa Siilaanyo laga helay ku farxay oo aan xishada bixin wadan kale Afrika ama meelo badan oo kala caalamka xabad iyo dagaal baa
runtii maanta dalkeena waxaad oran kartaa dimuqraadnimo heerkii joogtaba ha ahaatee dadaal badan baynu wadnaa waa laga yaabaa inaan ilaa 40 waddan Afrikaan tagay waxaan qabaa inaynu nahay kuwa Afrika ugu horeeya markay noqoto xagga dimuqraadnimada iyo xagga maaragtay horumarka electionska ama xorriyadda qowlka waad aragtay jaraa'idkeena free press baynu leenahay xadkii xataa dhaafeen oo dulqaadan oo waxyaabaha ku kacaan waxaan caalamku ku kicin bay ku kacaan oo waxay doonaan been yidhaahdaan been iyo qaar baan waxaad beenta nooga qoraysaan wuxuu ku leeyahay baashaan la iibsanaya haddaad beena noqon ilaa xadkaasaan noo galaan inay isnaga sheegaan markaa ama ha noqoto rule of law ama ha noqoto freedom of press ama freedom of expression ama freedom of assembly hal yaa wixii dimuqraadnimo ku lug lahayd dadaal ay leedahay waanu dadaalay dadka maanta la shirayna waxaan iibinaynaa waxaan wadan dimuqraadi aan nahay doorashooyinka qasameeya waa doorashada cusub oo qabtay madaxweynuhu bulshin kasta waa la fadhiyo iyo meel kasta wuxuu ka sheegay doorashada waqtigeeda ay dhacayso doorashada waqtigeeda ay dhacayso hase yeeshee waad la socotaa waqtigan xaadirka laba doorashaan isku saaray khibrad badan lama helin waxa weeye doorashadii baarlamanka iyo tii madaxweynaha shuruudaha iyadoo hawsha loo baahnaa waxay ahayd inaan samayno komishankii ilahay uu nala qabto komishankii waa la sameeyey nairobi bay tageen tababarkii bay soo qaateen groupskii hore way shaqadii way kala wareegeen marka komishankii hawshiisa wuu bilaabay komishankii hawshiisa ugu weyn voter registrationka way bilaabayaan waxaa ka horreeyo nooga horreeyo muslimiin xamu wadnaan aniga saacadda committeegeeda ku jiraa diiwaangelinta muwaadinka iyo civil registration waa hawl fiican waa hawl culus waa horumar waddanku gaaray in maanta muwaadin kasta ku dadaalo inaanu citizenship cardkiisa siino oo moodrana oo kaar moodrana kuwa caalamkaasina kaba sii fiicnayn indhihii iyo farihii iyo wixii loo baahnaayo dhan wada leh oo heer sare ah oo heer caalamiya ayaanu wadnaa ilaahayna wuu nala qaban doonaa mid ka mid ah bulshadii reer Somaliland ee goobta isugu yimi ayaa waxa uu weydiiyay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda sababta wadahadaladii ka furmay London ay ugu diga rogteen dhanka iyo Carabaha markii dambana loogu bedelay xagga iyo Turkiga wasiirka oo ka jawaabaya su'aashaasi ayaa waxa hadaladiisi ka mid ahaa sidan legally maadaama qadiyadda Somaliland legally ay case adag haysato وكيسكي سوماليلاند وأدق يحي وشرط كوسامي سينيحي ومانت الدولة سوماليلاند ليلة هذا أي شري شرطي حر أحي عالم كي إنجليز كقادتي عالم كشيني صوت وطن اعترافين أيضا عالم كي اعترافين أي تكتي حمر رمر كي يسوتني عن legal issues فربضا موشر إيطان وهذا تاجي يعني كريم حاقة ديدي لأنهم كيسوي كيسكينا international سأل الله سعطورت أنتي هوري أنت أنو كلام مقرين حمر أنتي هوري الدولة اللي ماشي دولة حمر لا هذا عن واحد الله قال لا ماشي كل بين يا تواشر كذا كوشر تقول بزيادة واحد نقول وضع هذا الله لا بقول يلا بيطلع طبعا تدخل توضع بدنا حسها يعني هورا بروتيكال ولا سكول بيان إن يخديدوا ذا بروتيكال اللي له حليز يجوا على الكلمة أيضا أي شرطو تعبنمو إسلامنمو عدالة إن نسحق إنه كل إن الكيس أضرب ليجا لا نعي إنه political كوير في political كانوا باللوني واحد من باللوني وابكل يلا بيه طبعا كي يسجون وضنطع إنجليز كاتشوري وضمنا فرح بدنا أتلسبع شوري حسيا شو حد عضي إن نتفيلو يعني نوصف في السي إن سيسي بلاتفورم إن نحكي الصومالية من الكل way fiicnayd waxayna siisay sinaansho way fiicnayd waxayna siisay laba wadan oo wada hadlayo oo siman noqono annagu waxaanu doonaynaa aad iyo aad uga shaqeynayna inaanu Turkiga kale isku
intaasi kadib haweenka reer Somaliland ee dalkan Belgium-ka ayaa qaadaan ugu baaqay jidka isku xidhi doona magaalooyinka Hargeysa iyo Djibouti. waxaan dumarkaygu isku qoondeynay waxoogaa yar inaan dooga caddaa ay dhidhiidho dumarkii Belgiga aad naga gaadhsiisaan madaxweynahan aad nagu salaantiin